على الديار كلهاي عيبين الركي ومشوها غضاي عليكو يقودي لي وعلى ميامي مع حرب لي عريبو بروانا مع كلام ضليا وحوي وحمام القبلات الصومالية كتير ودن دمان تصورت وفيس قميسي وفيس قميسي هذا تصالح وحمام القبلات on حد إثيوبيا ولا هين الصومالية لقى مصر من كرو إنه أرنت إثيوبيا ولا تو قرشة هذا حل ريان تقتصيا مام القبلات الله سمينه يو لبن بتقولي إنه بدنا عبده ولا إثيوبيا وحكي سود دكتور ودنا عبده كي سود واتوانو يشو بدنا عبده جنا ميلا إيده كسر نحجة شواء إنه يشو labada qodob ugu maamul goboleedka Soomaaliya ku suurtagelin marka waxa weeye maanta waxaan ugu qabaa 30 sano soo socota in ay caruurta iyo aabahood isku garawaayi doonaan wadan Soomaaliya la yiraahdaa jiri jiray oo ilmaha yar xilliga dhashaa oran doona may Soomaaliya wax yiraahdo jiri jiray xagee Soomaaliya ku nooshahay tilmaantaas ay noqon doonto dadka midnimada Yurub iyo Ameerika iyo Australia jooga ayaa dhulkan lahaan jiray Soomaaliya baa loolan jiray dad fiican bay ahaayeen waa arrin soo gal haday sidaa u sii socoto inay dhacdo midka kale aan u sheegay waxay tahay Soomaalida waxa arkaysaa qof shacab oo Soomaaliyeed oo iska socda Hargeysa iyo Garow iyo qabanayo oo xabashida u dhiibay waa cadaawad waliba ma aha tuqadeed ma waa cadaawad qabiil oo iyagu waxay ku tuusan yihiin dadkaas inuu qabiil yahay laakiin markii Itoobiya u dhiibayaan hal la dilaa u rajaxan iyaga laakiin ma la dilaa maya lama dilo intooda badan lama dilo markay dhiiraan waxa loo sheegaa jeelka loogu sheegaa inuu Itoobiya yahay uusan Soomaali ahayn waxaana la siiyaa tababar waxaana lagu shubaa cadaawad Soomaaliyeed waxaana loo dhibaa qori uu Soomaalida ku dilo isla wax yar kadib waxaad maqlaysaa iyagii hore shayna hadlayay hore waxaan u dhiibnay ururka nabadiidka aan u dhiibnay dawladda Itoobiya walaalaha maayadaan u dhiibnay shan maalmood kadib waxaad maqlaysaa waxaana laayay new police horta new police boqolkiiba 70 oo bay aan jireen waxa weeye niman aarsanin ma urka weeyba ku jira Soomaalida ku maaqaada waxa weeye aniga maanta Garow iyo Hargeysa socdo markay qabtaan waad Soomaaliya soo aragsan la jibdiro Itoobiya la yidbo Itoobiya ay tiraahdo haye Soomaaliya Itoobiya inta anaga ka jeclaysan jirin qorigaaga qaado technicalada qaado kunka wiilada ka amar qaadata aniga waa inay Garow iyo Boosaaso ku duuro oo laayay dadka jooga weey marka waxa weeye anigana idina way daba galaysaana aqal labadii daaba maxay oo kala dambeeyeen nin baa ku gabiyay dadka qaarkii laba nin bay ku sheegaan gabaygaas laakiin ma xaqiijin kara labada midkii lahaa dudaxaasina loo oran jiray ninka loo oran jiray labadaba waa lagu sheegaa waxa weeye Soomaalida waxa uu sheegay aqal labadii daaba anoo kala dambeyn mayno dhaqan ahaan iyo awood ahaanba waxaan idin ahayn sarsar dayr baan idin ahayn laakiin dayrkii idinkaa jiriyey nin suldaantima hadda loo oran jiray muwaadin xalaal ah gabaygiisa waxaa ku jirtay goortay iswada dooxatay buu daadu soo galay gabaygiisa ku jirtay nin kale oo isaguna tabliiq iraado oo loorin jiray qaban bulxan oo garyaqaan ahaa sugaanta dhinaceeda gabayadiisuna xadiis iyo aayad meedhana loorinaysa markaa u fiirsato wuxuu yidhi nin walaalkii doorsaday ilaah darajo siin waa waxa weeye Soomaalida waxaan u sheegayaa meel Soomaaliya ku taala oo tuulo oo xadgudub shacabka reer ogaadeen in lagu sameeyay uu ka dhacin ma jiro waxaa jira nin yiraahdo taar buleed video wareysatay isagoo wiilal Soomaaliyeed ku faaraya inuu Itoobiya u gacan geliyay waraysigiisi labaadna isagoo ka ooyaya wiilal Soomaaliyeed oo Itoobiya niman matala ku xigtay maqaalka waxa uu bixiyay maqaalka qol guux waxa weeye faan iyo boor isku meel ku jira way dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu sheegaya haddii sidaa ku sii socoto Soomaaliya oo iska qaban weydaan nimanka isku sheegaya maamul goboleedyo iyo madax inay yihiin hadda iska qaban weydaan dad Soomaaliyeed iyo sumcad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed iyo calan Soomaaliyeed iyo haybad Soomaaliyeed intaba waa la waayi doonaa waa sidaan idin sheegay waxa laga yaabaa berigii hore dadka wax sheega waxay ku hadlaan waa la waayi jiray qofka ma aragtay lagama qori jiray lagama duubi jiray laakiin waxa laga yaabaa maanta waraysigaas laga qaadayo 30 sano kadib inay Soomaalidu isweydiiso ama anoo wadan la isweydiiyo waxa weeye Itoobiya iskuuleeda waxa lagu dhigaa Itoobiya waa 92 milyan badna male
Soomaaliya 9 milyan waxay leedahay 6,000 kiiloomitir oo bada xagee badda Itoobiya ku maqan tahay ardayda Itoobiya boqolkiiba 9 qalin waxay ku dhufataa badda Itoobiya ee Soomaaliya haysato waxaa lagu oranayaa walaalaha anaga Itoobiya maslaxa u jooga Soomaaliya Soomaaliya Itoobiya ilaahay abuuriyo weligood dagaal iyo cadaawad baa ka dhacay geeska Afrika loo bay ku jireen mar walba oo Soomaaliya ka adkaatana reer galbeed ayaa Itoobiya u hiilin jiray oo Soomaaliya dhabar ka jabin jiray maanta laakiin Soomaalidu iyadaa isdhiibtay waxaad arkaysaa tusaale markaan ku siiyo Soomaalidu waxaa jiri jirtay nin baa 4 naagood qabay tusaalahaasaan doonaya halkay kugu soo koob 4 naagood maalmaha kamid waxay isku laayeen ninkay waanu jecel yahay wallaahi aanu jecel yahay 4 naagood oo 4 naagood la wada qabay waa xul iyo wadada baasiine timaha iska rafaan odagii waa loo sheegay wax la 4 naagood waxay isku dileen midowga anigu jecel yahay ayay isku dileen odagii uu yeeray 4 naagood wuxuu yiri maanta saasaad ku dagaalanteen baa la warraba way jirtaa baa soo aniga ima jecel wuxuu ku yiri si wada jeedsada dhabarkii ii soo duwa indhaha qabsada taan ugu jecelahay dhabarkan ka taabanayaa buu waana inay iyadoo sheegay nin gurigeedii aaduu 4 naagood ba dhabarku isku mad ka taabtay mid walba iyadoo bidixda ka laafyoonayso oo odagii waa uu jecel guriga ku noqotay waxa weeye maanta Siraayo wuxuu aaminsan Itoobiya ugu jeceshahay kan admoodinu waalan yahay Cabdiwali Gaas leeyahdana Itoobiya isaga ugu jeceshay waa aaminsan yahay kan Cabdikariim gure leeyahdana waa isagii jigjiga qaabka tumayay baashan dhaantada leeyahdana inuu shaqooyada hormada oo aqaanaay waa dhaqamada la buriyay kamid tahay dhaantii hadda meesha kamid jirtay isagoo tumay walaalaha anaga Itoobiya arkay waxa weeye sida kabcada qofka islaamka hadduu awooday waajib ugu tahay inay arsabataan waajib ugu tahay waxa weeye maanta Soomaaliya waxa lagu maamulayaa amarka arsababa ka soo baxa ayaa Soomaaliya ka shaqeeya hadda inay kaar ku dhacday meesha qaran ma jirto wax arkaysaa berdaway 5 baasaboor oo Soomaaliya leedahay wadankan ku arkay 5 baasaboor waa kala midab baasaboorkii Sheekh Shariif baasaboorkii Cabdullaahi Yuusuf iyo baasaboorkii Xasan waxa weeye baasaboorku waa nationaliteedka umada bedela umada la bedelaya adigu fiirso madaxweynaha waa la bedeli karaa laakiin jinsiyadii la bedelo magac kale loo bixiyo leeyahay baasaboorradii hore tuura Soomaali ma ahayne halka ay ka marayso iyo sida u fikirayaan waa sida maanta dadka Soomaaliyeed ma soo dooran karaan nin matali kara oo qadiyad Soomaaliyeed isu taagi kara shacabka Soomaaliyeed ma soo dooran karo laakiin Itoobiya ninkay rabta ayay dooran kartaa ninkay iyadoo rabto ayay dooran kartaa waxa arkaysaa nin kule madaxweyne Soomaaliya ahay calanka Soomaaliya calanka Itoobiya luqunta ugu duuban hadda maanta filla Soomaaliya safaaradaha adduunku meel la yaqaano xarun ay degan yihiin oo amaankooda lagu siqaa danaha gaarka ee safaaradu qabsataana wax xadidan oo dawladdu la socoto way maanta filla Soomaaliya warqada la qorayo ee xataa adduunka kala calaaqaadka uu Soomaaliya la sameeyo waa inuu gabar ogaado iyadoo video aan haynaa iyadoo ma kaliya muuqaalan haynaa hadda wax lognahay Soomaaliya inay isku dayo inay hub ama tababar military ruushka Ruushka la sameeyo Itoobiya waxay ku tiraashay waxa la sameyn kartaa ama Soomaaliya waxna laga weydiin waa wax jiro oo xaqiiqa weey arrintan idin sheegay marka hooyo maanta waxaan oran karaa dhul Soomaaliyeed ay rahan jirtay waa jira laakiin xukun Soomaaliyeed ma jiraan oran karaa aragtideeda taas aan ku soo koobaya waliba waa mid run ah hatta mid shaki ah ama maaragtay saadaalina ma arrintan sheegayo waa mid xog ah oo taariikh iyo tusaale bala weey arrinta ka hadlaya marka waxa weeye maanta Soomaaliya anigu markaan gobolkan hadda u dhashay Soomaalida Itoobiya ka taliso weligay ruux Itoobiya dhaqtar Hereriyan salaamay bari anoo malaariya iga baaray nin Hereriyan muslim salaamay adduunka tan kula ruux Itoobiya anoo salaamay ma ka soo baxay war ka fali jireen salaamo waxa noo yidariyo garowiye ka yimid walaalaha Itoobiya iyo hotel ma aragtay aan masquul hayno qof kaadiisa oo sariirta hoos gelinaya iyagoo dagaya waxa meesha ku dajiyo hotelada Soomaalida meelaha ku yaalla ma walaalaha naga Itoobiya oo meel af garanaysa aniga tikiyo u dhashay ma aqaanay waxa weeye Soomaalidu way isdhiibtay oo maaragtay gacanta lagu dhigay oo maanta dadkii ninkii Soomaaliga ahaa ee isla weynaa ee maaragtay qabkiisa nin la yiraahdo aan kugu noqdo tusaalahaas nin la oran jiray Cabdiqaadir Xuseen Yambaan waxa ka maqlay lix qabuulay qofku lixda qof waxa kamid ah qab qadeedeed wuxuu qabka qadeed hadduu qofku ka dhinto shanta kale way dhimataa qab shakhsiyadeed qab qabiil qab magaalo yani waxa weeye inaad shakhsiyadaada isla weynaato inaad qadiyadaada isla weynaato inaad wadankaaga u haweynaato inaad ummadaad ka dhalatay u qab yani waxa weeye wuxuu lixdu way dhimaan qabka qadiyada haddii la waayo maanta kii qadiyadeed baa maanta yaa dhintay nin kasta oo Soomaaliya eeg hadda Cabdiweligaas ku garow doon inuu xukumo wuxuu xukunka ku joogaa oo baan dagaalamaya waan ognahay sabab u tagay
مركز وحي أنا البلد دقالبيا منك إثيوبيا كوسا كله حي وكرر فاسية أنا لفتي إثيوبيا واحد من ستة هو إثيوبيا ومعارض قوى لكن سومالي ما من سنة سوت والله دقالبيا مركب حي تايسو إثيوبيا واحد مسيهين أنا لفتي هذا إثيوبيا لكن معارض قوى حكم كودا أيه وارسنت هاي لكن ضد الشيء وما أرك سنة كان مركز الصومالي أنتوا قرروا كتجيله كاسة هذا دقالبيا وهيكون مع إثيوبيا حرش كل شيء لكن معناه هذا الصومالي كل شيء سياسة الصومالي وحا كفي عن بلدين أي جوال إثيوبيا كفي عن أي جوال إثيوبيا ومواد كل يسوي عليها لكن أقوياء كصومالي هو وخير الوطن حتى البرلمان كان الصومالي قارب أو شقيه وطن مكله دولة رئيس الوزراء وحلقة غير شقيه وطن كله وهو خير الوطن ومركز شعب الصومالي وحنا لها راية ملحة كقوة ده الصومالي كان سلام ماشي كل السياسيين تي الصومالي سيدا النقدين إثيوبيا سامينteedina ay sidaa tahay maalin dhaweyd meesha la yiraahdo Garowe waxa lagu qabtay munaasabad weyn oo loogu magac daray inay tahay 20ka Gimbood waxa ay Ethiopia u taqaano waxaan arkayay mas'uuliyiintii maamulkaasi Puntland oo miiska hortooda yaala calamadii yaryaraa ee sagaalka qowmiyadood ee Ethiopia waxa la yiraahdo la isugu daray sagaalka qowmiyadood calamadii yaryaraa ee ay lahaayeen iyo kii maamul goboleedkaasi miis ay ku taxan yihiin hor fadhiya marka maadaama oo maamul goboleedyadiina ay halka marayeen iyo saameyntii Ethiopia ay halka marayso oo waxa la yiraahdo 20ka Gimbood ay ka noqotay 22kii Oktoobar oo kala ay Soomaaliya ka tahay maanta siyaasiyiintii Soomaaliyeedna ay sidaan noqdeen Ethiopia iyo danta ay leedahayna ay mid aad u fogtahay sida aad ka dhawaajisay ummadii Soomaaliyeed maxaa xal u ah sidee lagu soo celin karaa baad is leedahay sharaftii iyo haybadii ummadda Soomaaliyeed horta alaa inna nasr Allah qariib la taqnadu min rahmatillah kama qoonsanayna naxariista Ilaahay ummadani waxa laga yaabaa qof muwaadin oo xalaal inuu marka dhax tooso oo hore aan aragnay Axmed Gurey baan aragnay Sayyid Abdullah Xasan baan aragnay dad fara badan baan aragnay waa laga yaabaa inuu qof muwaadin Ilaahay soo bixiyo ummadda intuu gacanta ku dhigo hogaamiye laakiin kan maanta Garowe calamada Ethiopia ka taxaya hatta calanka Ethiopia ma aha وكي عنصر وكي صومالي وكي على إثيوبيا وين ماشي كما قلتوا وهاي خصوصا ماشي سنة يوم من قبل إثيوبيا كمدا لكن أركيدو مركز يسوي حمبارسية هاي كان صوماليا ماشي في دوامي ده وصيصة منافع دونتو يقولوا أن سيا الويل ولا كيو يسكدل يهين أو مثلا قلب دوك شوغا إنه إثيوبيا كبعت كدك تعمل كوي السدو أما ويلك الصومالي هرقيسة شوغا تصالحان wuxuu isagu ka baqayaa waa walaalkii uu cadawga uga dhawaanaya laakiin ma anfici doonto labadoodaba Ethiopia way isku hubayn waxa weeye Ethiopia ma baa jirta Ethiopian ku maamaan khayr sacad barra sacad tukutum waa isku mid waxa weeye saalada adiga nin sargaalo Ethiopia bari maamaay waxa ku leeyahay Soomaali ku jin laayay anaga meena ahayn khayr wal bay haay saala arigu soo qaaday saaladu ku Maryam Soomaali saaladani ma kala gaarayna leeyahay Soomaali waa isku mid buur iyaga waa isugu mid kan Garowe jooga ka gaalkacay jooga ka xamar jooga waa isugu mid siday dhabarka uga jibin lahayd ee dhulka Soomaaliya khayraadkiisa iyo xukunkiisa ay kula wareeg lahayd meesha Ethiopia uga dhig lahayd kaliya Ethiopia ku socota waan gartay aad iyo aad bal maasantay ugu dambeyntii abwaan maxaad ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaantii gaar ahaan shacabka Soomaalida ogaadeen ee gobonimo doonka waxaan u baaqayaa dadku noloshii dhawaatar marba dhawaato dhaantaa in lagu gumaysto qofku hadduu gumaysto ku jiro anigu dadka qaar inuu soo dhalan qof in la gumaysto iyo inuu soo dhalan ka khayr badan tahay sababtoo waxa weeye gumaysigu qofka bani aadamka wax kasta oo dunida Ilaahay uu isagu u baahan yahay oo dhan baa laga xayiraa maanta gobolka ogaadeen la yiraahdo Ethiopia xukunto waxaa jira sharci qoran oo Ethiopia ay leedahay inuusan qof konton ruux deeq ku anfici karaa inuusan ku noolaanin qof konton ruux cod ay ka qaadan kartaa inuusan ku noolaanin qof konton ruux cilmi ku deeqi karaa inuusan ku noolaanin hadda tusaale markaa ku siiyo dunida meelaha ugu cilmiga badan baa lagu tiriyaa gobolka Ethiopia gumaystay Soomaalida dadka ugu ugu culimada muhiimsan bay ahaan jireen weligaa TV hadda ka jira kuwa qaar markay soo fadhiistaan bismillaah ar-rahmaan ar-rahiim wax kale iska daa aayad qur'aan oo ka baxaysa markiis alxamdulillaah rabbil caalamiin iyadoo ilaahay ma maqlaysid haddii aan la yiraahdo iyadoo ilaahay ma maqlaysid insha Allah iyadoo ilaahay ma maqlaysid waxa weeye marka waa halka la gaarsiiyay ka reeyay dadka qof culimo ama qof indheer garada wadanka u dhashay maanta oran kara gabadhiisa hadii la xiray gabadheeda maxaa loo xiray ma jiro waa halka la gaarsiiyay yani bini'aadamnimada laga saaray waa tii sultaan bixi u sheegay dadkan daayeer bay noqon doonaan weeye daayeerkii bay ku sugan yihiin
aad iyo aad baad mahadsan tahay abwaan intaasi ayaynu kusoo gebagabaynaynaa waraysigeennii aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa jaaniska fiican ee aad siisay raadiyo Qoraxay codka shacabka dulman insha Allah waraysiyo kale oo badan baynu yeelan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo aad baad adeer u mahadsan tahay hayo ya habibi wafay وعدوا على بو هي عقد ليس نفس الحيرة قربوا